shil gaari waxyaalo badan geystay ayaa galabta wuxuu ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ee Somaliland. Shilkan ayaa yimid kadib markii uu rogmaday gaari ay saarnaayeen dad rayid ah kaas oo ku socday xawaare sare, sidaasna ay sababtay inuu gaarigu rogmado. 4 qof ay ku jiraan 2 dumar oo walaalo ah ayaa ku geeriyooday shilkaasi, halka uu ku dhaawacmay wadihii gaariga. waxaase ka badbaaday hal qof oo kale oo gaariga saarnaa. gaarigan rogmada ayaa nuuciisa lagu sheegay Nooho, kaas oo ka baxay magaalada Hargeysa kuna sii jeeday magaalada Berbera. dadka geeriyooday iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa la geeyay isbitaalka weyn ee ku yaala magaalada Berbera, halkaas oo ay ku booqanayaan ehelada dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay shilkan gaari. dadka ku geeriyooday shilkan ayaa dadka deegaanka waxay noo sheegeen in ay ka yimaadeen qurbaha iyagoona doonaya markaas in dalxiis ku tagaan magaalada Berbera oo bocd dalxiis u ah. dadka qurbaha ka soo laabta ayagoona dalxiis ku taga deegaanada Somaliland ay ugu horeyso magaalada Berbera. wali wax wara kama soo bixin lamaha ammaanka ee Somaliland kaas oo ku aadan shilkan dhacay. hay'adda shilal dhowr ah ayaa waxay ka dhaceen deegaanada maamulka Somaliland, kaas oo dad fara badan ay ku geeriyoodeen, kuwaas isugu jira qurbo joog iyo kuwa dadka deegaanka ah.